أما خوف تكفير ماشي يا الوار هذا أنا شيء نقدر فكره قاسمه أني أجوا إلى قالوا شاك بركو استاجوا قالوا حاشا شعر سوى تاجن شقومنا تاجن والمدى تاجن مسجد كا وعلى الروائل اللي هم معمروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كتب إله حبايا بقدر بارينينا أن أسكوب مع نمشان مانتا إن أنك هذا ورقف وزيرك الدفاع وزيرك قاشان ديقة كينيا أو شيء مساجد لفوراي مقالة منديرة تحديدها خاصة بولو بوسلي مساجد لفوراي مساجد كهذا حديث خطبة وكجيدي وزيرك أيا وحو يري مساجد كهلقة إلالية أهل السنة والجماعة صوفية ساسو يري ولي بأرقى سوء استعماري أهل السنة والجماعة iyo takfiirka masaajidka ha laga ilaaliyo dhahay masaajidka maamulkiisana ha la ilaaliyo dadkaadna ha laga ilaaliyo wasiirka markuu ugu horeysa waan cambaaraynaynaa intaanan cambaaraynin ka hore waxaan u sheegaynaa inuusan taariikhda ahlu sunna wal jamaaca uusan ka warhaynin ninkii taariikhda ahlu sunna wal jamaaca nin aqoonta diinta ay ku yar tahay inuu yahay ayaan kulka hor u sheegaynaa sababta waxa way ahlu sunna wal jamaaca diinta asalkeedii way dadka diinta asalku u ahaay waaya nabiga laga soo bilaabay calayhi salaatu wasalaam ayyamada islaamka oo dhan afarta madhab oo islaamka macnaha ayyamada islaamka oo dhan inta diinta islaamka madax u ahayd oo dhan kulli ka soo shaqeysay waxay kamid ahaayeen ahlu sunna wal jamaaca taas marka waxa ku kaliftay inuu yiraahdo masaajidada ha laga ilaaliyo taariikhda ahlu sunna wax kama yaqaano horta saasaan leenahay midda labaad wasiirka wuxuu sheegay in ummadda Kenya muslimiinta Kenya gobolka waqooyiga bari muslimiinta joogto inuu mas'uul ka yahay oo Soomaalida ah guud ahaan muslimiinta Kenya joogtana uu mas'uul ka yahay wasiir u yahay ummadda Kenya dhamaantoodana uu mas'uul ka yahay warkaas meesha dhaxdeeda sidaas uu ku sheegay laakiin haddana hadalkiisa waxa ku cad inuusan matalin muslimiinta gobolka waqooyiga bari ee muslimiinta Kenya joogto ahlu sunna waxay kamid yihiin shacabka Kenya waxay kamid yihiin dadka gobolka waqooyiga bari degan saadaradeed marka waxa waaya ummadii as mas'uulka ka ahaay oo mas'uulan u ahay muslimiintan matala uu dhahaayay inuusan matalin oo qaarkood mas'uul uu ku yahay laakiin qaar uusan matalin asaga ayaa cadeey wasiirka waxaan leenahay hadalkaas hadal meel ku dhac waaya raali gelin ha ka bixiyo in diinta ma arkaysa waxa waaya asagoo wasiirkii gaashaan dhiga inuusan shacabka ummadda Kenya degna dhaxdeeda inuusan dhaxdhaxaad u ahayn waxa la rabay ninka madaxda inuu dhaxdhaxaad ahaado muslimiinta dhaxdooda dhaxdhaxaad u ahaado dhaxdhaxaad ma aha waa nin ma arkaysa mowqifkiisa wuxuu ku cadeeyay inaad xisbi gaar yahay group gaar u yahay waxaan ognahay wasiirka in inta badan diinta islaamka uu ka hadla meelo badan uu yiraahdo ana diinta islaamka aan difaaca diinta islaamka aan kor yeelaa dhaqaale badan oo u ururiyo ummadda muslimiinta waxaan u sheegaynaa oo dhaqaalahaas bixisa gobolka waqooyiga bari muslimiinta joogta dadka degan dhamaantood madaarista lama wada dhisay lacagtaas madarisada si siman looguma dhisay masaajidadana si siman looguma dhisay dugsiyaalkana si siman looguma dhisay qaar ka mid baa la dhisaa qaarna waa la dayacaa ugu dambeyn warka gunaanadkiisii wixii asaga gurubkiisa oo xisbigiisa oo la socdi oo lahay masaajidka hal la ilaaliyo inta iidaad waxay gacanta ku hayeen baa la dhisaa munaasabna ma aha macquulna ma aha nin madax ah oo ummadda dhan u dhaxeeya mas'uulan ka ahayna leh inuu saas u hadlo war ku haboon ma ugu dambeynta ahlu sunna wal jamaaca waxay leedahay waxaan leenahay arintaas arin wasiirka inaad dahay ma arkaysa ku haboon ma aha arintaas raali gelin ha ka bixiyo dadka ahlu sunna wal jamaaca oo liiri masaajidada ha ku soo tukunina masaajidada ha laga ilaaliyo liiri dadka jiiraan ay masaajidka leeyihiin taas waxay tusinaysaa in masaajidada laftooda la dhisahayo dadkana loo diidahayo laga mancinayo maxaa jira ninka masaajidka daliir ha soo gelin maamul aska noqonin ha laga ilaaliyo hadii liiri salaadan isku soo tukunin waay waxa kale aad u liidan oo aad u yaab leh
أهل السنة والجماعة oo diinta meeshay ugu soo halgameen la ogyahay meeshay diinta ka joogaan la ogyahay waxay diinta islaamka u soo qabteen la ogyahay oo salafu saalix ilaa yawmina hada diinta islaamka u khidmaynahay in la barbar dhigo takfiir oo dadka gaalaysiinay masaajidada aan ku soo tukanin xoolihii islaamka ay gowracaan aanan cunaynin oo koox fallaaga ah lagu sifeeyo lala barbar dhigay taas idaana waxa waaye wax aad iyo aad u liidan waay waa wax aad iyo aad u xun warkaas war aad iyo aad u xun waay ahlu sunna wal jamaaca masaajid ay leedahay gobolka waqooyi bari waa joogtaa meel kastoo wadanka ka mid ay joogtaa diinta iyo dacwadana way wadaa masaajidana way lihiin madaarisna way lihiin dugsiyaalna way lihiin diinta kuma ganacsadaan diintooda waxa waaye ilaahay dartiis waxa qariib waxa waaye diinta ilaahay dartiisa ugu camal falaan ilaahay dartiisa ay dadku u baraan waxooda ma arkaysaa lagama dhiga wax lagu camal falaayo ilaahay dartiis loo samaynayo waa wixii qari marka ahlu sunna wal jamaaca oo qaylidooda yareey socodkooda iyo banaanka ay u imaan weeyaan waxa waaye waxay aaminsan yihiin ahlu sunna wal jamaaca waxay aaminsan tahay diintan in ilaahay dartiisna loo barto ilaahay dartiisna looga camal fala ilaahay dartiisna ummadda loo gaarsiiyo laakiin in diinta wax lagu bixiyo marka waxaan leenahay mas'uulka uu ku nagu dhacay meel oo maartay hadal aan loo baahnay buu na yiri oo aad maartay aan uga xumaanay ha ka soo noqdo ha ka cudur daarto ma cambaaraynayno oo xumaan uma qabno waa ninkii mas'uulka anaga ahaa laakiin inuu gurub qaar la safto lagama rabin ha ka soo noqdo intaas aan leenahay. Wassalaamu calaykum.